بسم الله الرحمن الرحيم مركله وعنا ونكسن ميل كستو naga daawanaysaan barnaamij 5 daqiiqo ayaan rabaa inaan halkan uga faa'iideeyo mid kamida dadka barnaamijka daawanayay oo barnaamijkii aan habeen hore soo gelinay ee ku saabsanaa sida sawirada qaybaha dambe ama backgroundka looga bedelo ayuu wuxuu markaasi qaybta hoose noogu soo qoray sida aad u jeedaanba qaybtan wuxuu noogu soo qoray marka hore mahadsanidin marka xigana waxaan idinka codsanayaa inaad ii soo diyaariso barnaamij waxaan hayaa ayuu leeyahay sawiro mp4 oo la dul saaray hees aniguna waxaan rabaa ayuu leeyahay inaan ka baxsado sawirada qaar maxaan sameeyaa macnaha barnaamijka dhan oo sawiro ayaa hayaa hees ayaa dul saaran saddex sawir ayaan doonayaa inaan ka baxsado maxaan sameeyaa mahadsanid ayuu mukhtaar noo soo weydiiyey inkastoo qaybta hoose aan ku soo qornay aan kugu soo qoray qaabka aad sameynayso oo qoraala haddana waxaan ku fikiray inaan 5 daqiiqo barnaamij aan kugu tuso sida aad ula bixi karto waxaan u fahmay inaad video u yahay waxa sawiradu ay ku jiraan kadibna hees idul saaran tahay laakiin aad rabto sawirada bas inaad kala baxdo marka waxaad sameynaysaa tusaale aniga hadda video iyo masar desktop-ka laakiin waxaan kugu tusayaa YouTube-ka waa isku si ayaa loo marayaa tusaale ahaan halkan waxa ku uga jeedaan YouTube sawir kastood YouTube-ka aad rabtan waad kala bixi kartaa aan play dhaho waa video sida u jeedid marka waxaan rabaa marka videogan inaan kala baxo saddexdaas dhalinyaro inaan kala baxaan rabaa sawirkooda waa video waa shidan yahay waa kana haddaan right click dhaho ma dhahmaayo waa video si kale uma qaadi karo kameranta soo qaato ma sawiri karo marka waxaa jira qaabab looga qaato sawirka laba nooc jirta nooc waa software la soo download gareysto oo computerka lagu shubto laakiin waa process dheer waxaan rabaa mid simple ayadoon waxba kaaga bixin qof kastana waxba uga bixin in sawir kasta oo uga baahato video computerka ku dhex jira ama YouTube ha ku jiro ama ha ku jiro Facebook ha ku jiro ama meel kale ha ku jiro ama xataa desktop-kaaga ha saarnaado sida aad sawir uga qaadan lahayd ayaan rabaa inaan halkan kugu tuso marka waxaad sameynaysaa marka ugu horeysa filmka shit belayde marka aad rabto oo filmka aad filmka belay dhahdo marka meesha aad rabto sawirka aad rabto oo dul marayo ayaad waxaad dhahaysaa pause waxaad dhahaysaa stop waa joojinaysaa marka wuxuu noqonayaa sida hadda sawirkan aniga hor yaalo kale uu istaagayaa markuu sidaan noqdo computerkaaga waxaad ka fiirisaa meel ay ku qoran tahay waxa ku qoran P oo B for Ben iyo R iyo T oo la soo gaabshay iyo SC oo idin la soo gaabshay marka haddaan kugu celiyo waxa weeye BR P waaye waa midda P macnaha oo person oo kale ka bilaabata ama pen sida adigu qof walba u yaqaano R T iyo SC oo la soo gaabshay marka waxa laga soo gaabshay printing screen ayaa laga soo gaabshay marka taas aad qabanaysaa sawirka korkiisa markaas u dultagtid iska ilaali falaarta sawirka meesha aad rabto saaran waayo haduu falaarta soo baxaysa kor uga qaad falaarta meeshaas kor geyso kadibna calaamadii hadda aan ku sheegay computerkaaga xarfaha keyboard ka fiiri kadibna inta badan gacanta bidix qaybta oo lambarada ku qoran yihiin korkooda ku qoran tahay kadibna enter dheh hit garaac oo dhaksi haddii computerka aad isticmaalayso uu yahay Toshiba oo kale inta badan Toshiba anaad waxaan isticmaalaa Toshiba oo kale uu ka duwan yahay waxa jira xarf la qabto ka hor inta taas la taaban marka waxa ku qoran ayadana FN oo dabcan fine ama malaynayo in ma hubo wax laga soo gaabshay laakiin FN ku qoran kadib FN ta qabo marka qabatid waxa ku soo bixi doona waxyaabahaas tirada badan ku soo baxaya kor saaran u jeeda F6 marka waxaan u maleynayaa marka waa F5 taas tirada badan ayay amartaa kadib marka F adoo taas haya oo farta ku haya kadib waxaad garaacdaa oo click siisaa hasiideen F-taas waxaad click siisaa meesha ay ku qorneed sida hadayba ku sheegay ay ku qorneed printing screen kadibna click si markaad click siisid waxaad furtaa computerkaaga meeshan fur waxaad ka fiirisaa printing screen aan iraahdo painting
painting qof kasta yaqaan painting tag meesha painting ku qoran tahay kadibna halkaan imo kadib waxa tirahdaa control qabo v xarafka v haddii intaan soo dhigin aan v ku tuso sida ay qormayso saa u ogaatid waa v oo ah xarafka v sidaas oo kale ayaad maartay qabanaysaa hadda v ma rabno marka tusaale ahaan markaad sidaas samayso waxaad samaynaysaa xarafka v adoo controlka haya control v oo macnaheedu tahay paste soo dhig ah control v markaan dhaho waxa ii soo baxay oo ii soo sawiray printing screen wuxuu ii soo sawiray wixii dhamaa YouTube-kii dhan ama qaybtii video ka socdo dhan uu ii soo sawiray marka halkaas timaadid qaybta kalood bilaabisid waxa la yiraahdaa waayo waxaan mar rabna fiiri meeshan waxa ku qoran geesahan iyo YouTube-kii sidiisii ah iyo sawirro kale halkan ku jiray waxaas dhan marno anaga ujeedadeen waxay tahay sawirka bas inaan helno waxa la dhahaysaa meesha ku qoran tahay crop intaad crop dhihin select samee select dheh kadibna waxaad doorataa qaybta sawirka kaliya dooro tusaale ahaan sawirkan rabnaa sawirka qaybta uu yahay oo kaliya dooranayna sawirkaas marka inta keeno waxaan dhan qashinka dhan iska tuuraan rabaa marka waxa leedahay crop meesha ku qoran tahay oo ah ciriiri isku keen qaybtaas kaliya soo qabo marka waxaan leenahay crop kaliya siinaysa marka haddii kale control plus shift waxa dhahaysaa x control sida halka ku qoran u jeedidba markaan kor saaro waxa soo qormaya crop waxa macnaheedu yahay aad haddana ka amri kartaa meeshaas oo kale oo ah control plus shift plus x calaamada x ama xa marka crop dheh kadib waxa noo soo baxay sawirkii oo nadiif oo jeeda sawirkii oo kaliya ku soo baxay waxaan u maleynayaa saaxiibkan sidoo reebo sidaas sawirkii oo nadiif ah oo sidiisa ku soo baxay kadibna waxa tiraahdaa file dheh kadibna save as dheh kadibna wuxuu keenayaa halkan ku keenayaa oo soo socda xogaa yar computerka iga culus kadibna magac ku qoro magaca ku qor hadda rabtid waxa badashaa type-ka ama nooca uu yahay sawirka inta badan waxa fiican GPE G ayaa fiican ama GPE ama hadba sida taqaano kale geeso kadibna desktop-kaaga tag kadibna save dheh kadibna sawirkii desktop-kaaga ku yaala waxaan jeclahay in su'aashii saaxiibkan uu soo weydiiyay oo ahayd sida maaragtay sida sawir looga qaato waxaan filayaa inuu fahmay ama santiin sidaas oo kale noo soo weydiin kartaan waxyaabaha yar yar ama sidaan oo kale ah is leedahay culays kugu tahay kadibna aad maaragtay aad rabtay inaad ogaatid haddaad rabtidna iyadoo qoraal ah qaybta muqtaar commentigiisa ka hooseysa ka fiirso filimkana dib u fiirso ama santiin dib dambe u kulmi doono sidaas iyo adigoo subscribe dhaha commentigaaga waa furan yahay comment nagu soo weydii filmaanta meesha ku jiro dhan wada daawo ka faa'iideyso haddaad ka heshid waxaan noogu abaal nooga dhigtaa inaad subscribe noo dhahdid commentina aad ka bixisid suulkaas aad saartid oo suulka kali ku siisid suulka sare intaas sidaa iyo nabadgeliyo